أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه وين سبحانه وتعالى كرها أي باسكال. ولا ليال أمة الصوماليات waxaa jira eray Soomaali oo la yiraahdo suurtagalnimadu waa ma dhamaato yani waxyaabaha suurtoobaya waxay inta badan kelmadda suurtagal waxay raacsiisan tahay waqtiyada markii loo qaybiyo waqtiga soo socda waqtiga hadda taagan iyo waqtiga la soo dhaafay inta badan waxay raacsiisan tahay isticmaalka kelmadda suurtagalku waa waxa future-ka soo socda waxaasna Alle weyne subhanahu wa ta'ala sirhiisa kamid laakiin dad wax garanaya maadaama aynu nahay saadaasha oo kala weeyaan marka Soomaaliya ama ha ahaato Soomaalida ogaadeen ama ha ahaato Soomaalida kale ee maanta kala daadsan suurtagalnimo intee la eg oo damaaciga ah gumaystayaasha ama shisheeyaha ama danaha interferka ee arrimaha dibadda ee ku socda suurtagal intee la eg weeyaan inay Soomaaliya ay cagaheeda isu taagto oo la helo su'aashii midnimada ahayd ama iyada oo si sax ah wax sax ah oo la timaada suurtagal intee la eg baa dhinaca positive-ka ama suurtagalnimo dhinaceeda kale negativity-ga ama ay fashilmayso arrintan oo ka duulaya marka waxaa la yiri waxaa jira Soomaaligu waa laan dheer balse waxaad moodaa luuqadaas ruuxaan hadda aqoonin in ay laba kelmadood oo isku eg isku badaan noqdaan macnaheedu markii la maqlo wax la yiraahdo sandulle iyo xandulle waayo sandullaha iyo xandulluhu waa laba kelmadood laakiin aad u kala fog yihiin sida loo isticmaalayo sababtu maxay tahay intaan soo qaadano sandulluhu waa khasab waa wax la khasbay wey وهذا سؤال كويسة تطبخ خصبها يا وخصب وكلمة خصب هو سندل حنقول له هنا وحاول لفتبرتنا حجرة لفتبرت الجديه هذا وحجرة وحلي هذا دفن سيدا مسكح له الكلاء وكل حجرة أفكر على الحلوة ده مدلة حنقول له هاس ويسكو إيدينا من دلنا أي حين كلهم أخاف من تودا بدن يسكو ما كان هرجع بدن ودايسان باجر كان لما كلمة دود أي الله ما عنه هو ينكله وما أنت Soomaaliyeed حد مودا إن السندولين الله خص بهاي كما سوقات وكيل ليس ما يصنعان حتى نظام كدي دي اس وحلو سمي مدحويني وحلو سمي دولة دان oo adiga ma aragtay ugu hoos geenay oo dawladda sare ay ku gumaysato hoos tagaysa sida ma aragtay Soomaaliya ay maanta ay waqtigeedu ugu wada xiran tahay gumaysiga midowga Itoobiya marka sandulluhu waa sax gumaysigu inay sanduleeyay oo inay sanduleynaya oo inay khasbahaya xandulluhuna حوالي معنا سيدا وحنقوله أي لطبرته وجود أحسن أيوة جميس يقولون إنه وجود أحسن مركا عنصر النقطة سؤال سيدي أهي صورة الجل أنت لك وحد من قدام مركا حدان فتق الله يكفي حدان طرين ليالك حدان أنت المدوبين عم يرى أنت اللي هلو حتى بيسا وي أمو قطع اتكستقو واحد جرانا يسمان تماشي اللي تعيني سومالي والله تاس هدينا عن مركا وحنسوق هذا يا aragtida markii la waayo ajendayaal istiraatiijiyadeed oo ummadda hagahaya waxa lumahaya waxa hoos u dhacaya hankii inta badan dhaqaaqyada ama xornimo doonka ha noqdo ama hawl kasta oo ummadda haysa dhaqaaqyadeeda waxa hagahaya dhalinyaro marka
dhalinyarada codkan waxaa sabab u ahaa inaan ka hadlo laba dhalinyaro ah ayaan tusaale u soo qaadanaya aragtida ka imanaysa xilligan xaadirka kow waa midka koobaad laba dhalinyaro oo maalin dhaweed sheekaysanaysa ayaa waxay tilmaamayaan magaalo ka mid ah ummadda Soomaaliyeed inay tahay wax la yiraahdo inay tahay ay booqday mid ka mid ah kuwa isbarsanayay inay magaaladii nabadgelyo tahay uu sheegaya haddana wuxuu sheegayaa airportka waddankaas inay dawladda Itoobiya ciidanka Itoobiya ay hoos imanayso meesha ayada markaa su'aasheedii ahayd haddaan xiriir la yeesho suurtagalnimada markii dhalinyarada maanta ay meesha marayso inay Itoobiya oo magaalo ka mid ah maamulanaysa in loo arko inay nabad jirto waa wax aad iyo aad looga xanuunsado su'aasha kale waxay tahay waxaa jiray dowladda halganka ummadda Soomaaliyeed oo rajada ugu weyneyd ahayd ayaa waxaan dhihi karaa sanadii 2018 baa ilduuf hogaamineed oo yimid ayaa la khiyaamay dowladda Itoobiya way khiyaamtay wax wada hadal oo xalaalana ma ahayn xilligaas markii gumaysiga madowga Itoobiya waxa laga yaabaa inuu diblomaasi ahaan ku guuleystay sida awgeed waxaa dhashay in jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen aragtidii gaabatay inay sababto in gumaysiga Itoobiya la galo oo haddadan saacadan inuu taaganahay kuwa mandate-ka iyo kuwa la qaybiyay gudaha labadooduba waxay aaminsan yihiin in xisbi Itoobiyana la yahay oo inta Itoobiya ka mid noqdaan inay xorriyad gaarsiin doonaan ay aaminsan yihiin labada marka option waxaan raacsanayaa ummadda Soomaaliyeed balan soo qaadano awoodeeda madaxtinimo kuwa hogaaminaya aan miisaan saar waxaan dhahaynaa gobolada dhexe kal hore wixii ka socday baad ogeeyeen inay madaafiic la dhacay ummad Soomaaliyeed oo kale la dhacaysa waxaan soo qaadanaynaa inay bogcad kasta oo ummadda Soomaaliyeed ciidamada Itoobiya ay kasaa ugu mulaaqayaan waxaan ka dhaleegsanahay inay ummadda Soomaaliyeed wax la yiraahdo AMISOM ciidamada Afrikaan ay joogaan waxaan ka dhaleegsanahay magaalo ka mid ah xaafad ka mid ah oo Muqdisho ku taalo oo xalana la yiraahdo in ajnabigu degan yihiin shisheeyo oo ummadda Soomaaliyeed ay magaalada dhex tagi karaan waxaan ogsoonahay inay xeebihii Soomaaliya dhufaysan laga qorto waxaan ogsoonahay inay la raadinayo aqoonsiyo laga raadinayo kuwa adduunka ugu khatarsan waxaan ka dhaleegsanahay inay ismaamulada jira kuwa loogu leeyahay badan yahay kuwaas ee aaminsan inay la xijaclaawayaasha yihiin inay xiriir toos la leeyihiin gumaysiga Itoobiya iyo wadamo shisheeye oo ay ka mid yihiin Imaaraadka su'aashu waxay tahay marka kuwaasina ajendayaashoodii ayaa waxay ku xidheen shuruud marka aan intaa yar aan waqtiga ka faa'iidaystay waxay tahay ummadda Soomaaliyeed waxa u roonaan lahayd in hal wadan qaybiyo ummadda Soomaaliyeed intaas oo wadan baa qaybin ku wada marka waxaan dhihi karaa marka ummadda Soomaaliyeed wax jaradkeeda ilaydkeeda iyo labeenteeda ummadda Soomaaliyeed sawirkeeda suurtagal miya in ummadda Soomaaliyeed istaraatiijiyadan fog ee loo qorsheeyay in ay failed noqonayso oo dawlad ama ummad Soomaaliyeed oo maanta failed oo mar dambe madaxa ka soo kiciyay sababtoo ah gumaysiga wadada Itoobiya wuxuu sarriyoonaya waxaan soo qaadanaynaa 70-meeyadii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ciidamada cirka noqday inay ka mid noqdaan markii gumaysiga weynaha ee Laslaasi u ogaaday dhalinyarada Soomaaliyeed markii koorsooyinkii ciidamada Itoobiya ay force ay dhamaysteen markii la ogaaday inuu Soomaali yahay uu misraarada Laslaasi wuxuu ka roosay in ciidanka cirka noqdaan meesha waxaad garanaysaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaa lagala dirirayaa xitaa inay noqdaan inay gaaraan horumarada caalamiga ee ummaduhu ay gaadheen oo joog ka tahay laba ajenda ayaa jira kan caadiga ee nidaamka ee maamulka ee dawladaha ee administration ee
dowladda dhexe ee baarlamaanada ee golaha sare leh golaha hoose leh koongareetada leh iyo nidaamka ismaamulo iskuullada leh ee kombaniyada ganacsiga leh nidaamka civilianka la yiraahdo iyo nidaamka amniga ee ilaalinta labada arrimood marka Soomaali waa lagala dagaalamay marka waxa suurtagal ah marka maanta dhalinyarada Soomaaliyeed haddayba meesha marayaan oo haddaan dib inoo xusaa waxay tahay ninka dhalinyarada ah la jeclaawaha ah halganka gobonimo doonka jabada waddanka xoreynta ogaadeen yaa ka tirsanahay leh maanta aragtidiisu ay taagan tahay barnaamijkii wada hadalka ahaa Itoobiya la yeeshay shirqoolka u arka in la ilaaliyo kaba soo qaad hadda shirkii ugu dambeysay mandateku ummadda ku hayay xisbi Itoobiyaan ah baan anaka dhowr urur oo Soomaali ah baa ku midoobaynaa leh hadafkii gobonimo doon ee himilada soo gaadhay iyo kii kale dhalinyarada ahaa ee u qirahayay inay ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo tahay sababtoo ah magaaladaas booqanayo waxa hoos tagaysay airportkeedu meesha madowga Itoobiya labada tusaale waxaan u soo qaatay waa rajada ummadda Soomaaliyeed ee suurtagalnimadu dhamaato weeyaan waxa suurtagal ah inay ummadda Soomaaliyeed baalaha ku qoydo oo hoos u dhacdo talana waa tii alle sida awgeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ku baraarujinayaa waxgaradkeeda inay fadhiga iska kacaano loo jumtado sidii ay ummadooda u badbaadin lahayd waa dhagax madoobe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.